بسم الله الرحمن الرحيم وصباحنimo axada 16 bisha November sanadka 2025 oo ku beegan 25 bisha Jamaadul Awal sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada saakii barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamid ah Eritrea oo Ethiopia ku eedeysay in ay dagaal ka horinayso xadka labada wadan u dhaxeeya dawladda Taliban oo shaacisay in diyaaradda Mareykanku uu leeyahay ay soo galeen hawada dalkooda iyagoo ka soo saaray arrinkaasi digniin aad u kulul Putin iyo Netanyahu oo ka wada hadlay xaaladda Gaza iyo arrimaha gobolka bariga dhexe Masar oo si adag uga hortimid isku day kasta oo lagu kala qaybinayo Gaza ama lagu barakicinayo Falastiiniyiinta iyadoo adkaysay muhiimadda ay leedahay xalka laba dawladood Mareykanka iyo Israa'iil oo isku khilaafsan habka loo abaarayo qorshaha nabadda ee Trump xukuumadda Israa'iil oo ka walwalsan in Mareykanku uu ku qasbo in ciidankooda ay kala baxaan buurta Jabal Sheikh ee Syria oo Israa'iil ay qabsatay markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii wara ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaan ku bilaabaynaa xiisadda ka dhex aloosan Ethiopia iyo Eritrea iyadoo labada wadan abaabul ciidan ay wadaan isla markaasna hawada la isu marinayo hadalla xanaf leh ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa dawladda Eritrea ay ku eedeysay Ethiopia inay abaabulayso dagaal wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yamani Garba-Meskal ayaa ku eedeeyay xisbiga talada haya ee Ethiopia ee xisbiga barwaaqo ama PP in uu horinayo dagaal aan sabab lahayn isla markaasna dib u bilaabay damaca hadallo isballaarin ah isagoo ka jawaabayay khudbad uu jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia oo ku eedeeyay Eritrea in ay xasilin la'aan Ethiopia la dabacsan tahay ayuu hadalkan jeediyay qoraallo uu ku baahiyay baraha bulshada Garba-Meskal wuxuu sheegay in khudbadda wasiirka Ethiopia aysan ku salaysnayn xaqiiqooyin balse ay ka turjumayso karti la'aanta hay-adeed ee wajahayso xaqiiqooyinka taariikheed ee muujinaya in xadidaadda colaaddu ay ka bilowdeen Ethiopia gudaheeda wasiirka warfaafinta Eritrea wuxuu ku eedeeyay xisbiga talada haya Ethiopia in uu marin habaabinayo ra'yiga dadweynaha isagoo dib u soo cusboonaysiiyey hadalladiisii dagaal hore isla markaasna isku dayaya inuu isku muujiyo inuu yahay dhibanaha wasiirka warfaafinta Eritrea wuxuu xusay in Addis Ababa ay dhawaan yaraysay hadalladeedii kacsanaa ee ku saabsanaa in si xoog ah loo helo marin badeed iyo saameyn ay ku yeelato badda cas kadib markii ay garatay in soo jiidamahaasi aan lagu taageerayn gudaha iyo dibaddaba ha yeeshee wuxuu sheegay wasiirku in aamusnaanta hadda jirta aysan ahayn dib u egis dhab ah balse ay tahay xeelad lagu doonayo in lagu sharciyeeyo dagaal suurtagal ay tahay oo lagu tilmaamo isdifaac dhinaca kale isbahaysiga dimuqraadiga qaranka ee Eritrea oo ah isbahaysi mucaarad ah ayaa soo dhaweeyay hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia kaas oo ay ku tilmaameen tilaabo togan ah oo lagu dhisi karo in dib loo qaabeeyo xiriirka Eritrea iyo Ethiopia si isu dheelitiran oo xasilooni leh xoojinta iskaashiga labada shacab ee Eritrea iyo Ethiopia waxay noqon kartaa tusaale lagu yeerayo faragelinta shisheeye iyo xiisadaha muddo sanado ah gobolka saameeyay ayuu isbahaysigu ku yiri war-saxaafadeed ka soo baxay waxdiisa amuuraha dibadda isbahaysiga dimuqraadiga qaranka waa urur mucaarad ah oo mideeya dhowr xoog iyo urur Eritrea oo dibadda ka howlgala khudbad uu ka jeediyay madasha siyaasadda arrimaha dibadda ee Addis Ababa wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Gideon Timotheus wuxuu ku sheegay xiriirka u dhaxeeya Ethiopia iyo Eritrea inuu yahay mid ka mid ah xudunta
xiisadaha dabada dheeraaday ee gobolka wuxuu sheegay in heshiiskii Algiers ee 2000 uu joojiyay dagaalkii tooska ahaa balse uusan xalin ubucda khilaafka taas oo labada dal ay markaasi ku jireen xaalad dagaal iyo nabad midna aan ahayn Eritrea iyo Ethiopia waxay galeen dagaal dhiig badan oo ku qabtay 1998 ilaa 2000 sababo la xiriira muran dhanka xuduudda ah xiriirka labada dal ayaa soo hagaagay sanadkii 2018 markii Abiy Ahmed oo talada Ethiopia qabtay wuxuuna heshiis nabadeed la saxiixday madaxweynaha Siyaas Afwerki laakiin xiisadda ayaa dib u qaraxday 2022 kadib markii uu dhamaaday dagaalkii gobolka Tigreega ee waqooyiga Ethiopia waxay ku eedeysay Eritrea oo dariskeeda in ay martigeliso oo ay maalgeliso kooxaha hubaysan oo la dagaalamaya ciidamada federaalka gaar ahaan kuwa gobolka Amxaarada ciidamadaasi xukuumadda Casmara gaashaanka ayay u daruurtay wahagaag barxagga Afrika aynu ka bayrno oo haatan aynu eegno dhankaas iyo qaaradda Asia Taliban oo warweyn soo saartay ayaan idin soo gudbinaynaa haatan afayeenka dowladda Taliban ee dalka Afghanistan Sabihullah Mujahid ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ay wali dul heehaabayaan hawada Afghanistan isagoo xusay in diyaaradahaasi ay soo galaan hawada dalkooda iyagoo soo maraya dalal daris ah ayna si joogto ah ugu xadgudbaan hawada Afghanistan tan iyo markii Taliban xukunka ay la wareegtay afayeenku wuxuu ka shanqariyay in qaar ka mid ah dayuuradahaasi ay ka soo galeen dalal dariska laakiin ma uusan magacaabin wadamadaasi inkastoo hadallo horey u soo baxay oo ka yimid xukuumadda Kabul ay Pakistan ku eedeeyeen in ay u suurto gelisay dayuuradaha droniska ee Mareykanka in ay soo gaaraan Afghanistan sida ay ku waramayso warbaahinta Khama Press ee laga leeyahay dalka Afghanistan Sabihullah waxa kale uu xaqiijiyay in dowladda Afghanistan ay si rasmi ah u dalbatay in si degdeg ah loo joojiyo duulimaadyada dayuuradahaasi isagoo ka digay inay wiiqi karaan madaxa banaanida Afghanistan xilli ay kordhayso xiisadda kala dhaxaysa Pakistan hadallada Mujahid ayaa imaanaya iyadoo ay dib u xoogeysteen xiisadaha Kabul iyo Islamabad iyadoo Afghanistan marar badan ku celisay in Pakistan ay faragelin ku hayso xadkeeda halka Pakistan ay ku eedeysay kooxa Afghanistan ku sugan in weerar ay ka geystaan gudaha dhulkeeda xiisadda labada dal ayaa cirka isku shareertay tan iyo iska horimaadkii dhiigga uu ku daatay ee bishii hore ka dhacay xadka labada wadan iyadoo Islamabadna ay ku hanjabtay inay qaadi doonto tillaabooyin haddii weeraradu ay sii socdaan iyadoo wadahadaladii u dhexeeya labada dhinacna imika ay cakiran yihiin wahagaag wararkaas intaas aynu ku dhaafan waxaan u gudbaynaa warar la xiriira Mareyka Gaza Masar oo si adag uga hortimid qorshe lagu kala qaybinayo Mareyka Gaza oo la sheegayo in Israa'iil iyo Mareykanku ay ka shaqeynayaan dhinaca kale Israa'iil iyo Mareykanku waxay isku khilaafsan yihiin qaabkii lagu gudbi lahaa wajiga labaad ee heshiiska xabad joojinta wararkaasi iyo warar kale intaanan idin soo gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysiina mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan axadda ah toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka وهجاج ورك قصة لحريرة aynu eegno imika waxa lagu jiraa xabad joojinta inkastoo Israa'iil ay sii wado xadgudubada ka dhanka rasaas joojinta arintaas wadamadeena dhaxaadiyaasha ah si adag ayay Mareykanka uga hadleen gaar ahaan Turkiga oo hadiyo goorale Mareykanka ku wargeliya Israa'iil xadgudubada ay wado Mareykanku inuu mas'uul ka yahay gacanta inuu qabto oo ay joojiso laakiin xalay warbaahinta Israa'iil war ayaa ka soo baxay warkan wuxuu la xiriiraa Mareykanka iyo Israa'iil inay isku khilaafsan yihiin qorshaha la xiriira qorshaha nabadda ee Trump hadda waxa lagu jiraa wajigii koowaadna waxa qayb ka ah in xabad joojinta iyo in la keeno ciidamo ka socda qaramada midoobay ama ciidamo caalami ah Mareykanka Gaza kuwaas oo loogu talagalay in ay hubka dhigis ka sameeyaan iska caabinta arintaas marka iyadoo adag
xaaladdu adag tahay ayaa hadda waxaa la sheegayaa in maraykanku uu doonayo in loo gudbo wejiga labaad oo dibudhiska ah laakiin laga gudbo ciidamada la keenayo iyo qorshaha hubka dhigista bacdama labadan qodob ay noqdeen labada qodob ee ugu adag haddaba aynu eegna arrintan iyo wararka la xiriiray telefishinka kanaal 13 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa baahiyay in Washington ay ku cadaadinayso Israa'iil in la dhaqangeliyo wejiga xiga ee heshiiska ee lagu doonayo in lagu gaaro qorshaha dibudhiska Mareykanka Gaza si kastaba ahaatee warbixintu waxay muujisay in khilaaf xooggan uu ka dhex jiro Israa'iil iyo Mareykanka iyadoo kala duwanaanshaha xagga aragtidana ay tahay Israa'iil oo ku adkaysanaysa in marka hore hubka dhigista la sameeyo laakiin Mareykanku uu doonayo in dib loo dhigo qorshaha hubka dhigista iyo ciidamada caalamiga ah ee Kenya Mareykanka Gaza laakiin la guda galo hanaanka dibudhiska Mareykanka Gaza arrintaas ayaa waxa la sheegayaa inay tahay tan ugu adag ee sida weyn khilaafka uga taagan yahay isla wararka Gaza waxaa kamid ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa xalay wadahadal qadka telefoonka wuxuu kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu labada nin waxay ka wada hadleen xaaladda bariga dhexe gaar ahaan Gaza barnaamijka nuclearka ee Iran iyo arrimaha Suuriya sida uu sheegay aqalka cad ee Kremlinka ee looga arrimiyo dalka Ruushka ruushku wuxuu soo jeediyay qaraar cusub oo qaramada midoobay horyaal kaasi oo ku saabsan qorshaha lagu joojinayo dagaalka isla markaasna waxa kan liddi uu ku yahay qaraarka Mareykanku oo soo bandhigay oo ay diideen xukuumadaha Ruushka iyo Shiinaha iyo dalalka Carabta qaraarka Ruushka wuxuu dalbanayaa in xogayaha guud ee qaramada midoobay uu soo jeediyo ikhtiyaaraad cusub oo ku aadan samaynta ciidamo caalami ah oo xasiliya Gaza wuxuuna meesha ka saarayaa dhismaha guddiga nabadda ee Mareykanku uu soo jeediyay in loo sameeyo maareynta marxaladaha kala guurka ee Gaza laakiin ergada Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaya golaha in uu ansixiyo qaraarka Mareykanka waxaana la filayaa qaraarka Mareykanka maalinta bariya oo isniinta ah in loo codeeyo waa hagaag isla arrimahani waxaa soo baxayay warar la xiriira in Mareykanka iyo Israa'iil ba ka shaqeynayaan qorshe Mareykanka Gaza loo kala qaybinayo inkastoo Israa'iil qorshahani si weyn ay u wadato qorshahan waxaa kamid ah dhanka galbeedka ee Mareykanka Gaza in la dhiso Israa'iil halkaas ay ka samayso dibudhis ayaga iyo Mareykanka laakiin ciidanka Israa'iil ku sugnaadaan dhankan barigana loo daayo iska caabinta Falastiiniyiinta laakiin wax gargaar ah aan la geyn dibudhisna aan laga samayn laakiin dhinacan ciidamada Israa'iil iyo haddii ciidamo caalami ah la keeno iyo waxaas oo dhan ay ku sugan yihiin in la dhiso gargaar badan laga qaybiyo si dadka shicibka halkaas u yimaadaan istiraatiijiyadan waxaa lagu sheegay inay tahay istiraatiijiyad lagula dagaalamayo iska caabinta Falastiiniyiinta marka goobaha ay ku sugan yihiin ama ay ka taliyaan dadku ay ku dhibtoodaan gargaar aysan helin xaaladdu ay ku adkaato dadku marka inay aadaan meeshan dibudhiska u ka socdo inkastoo dadka Falastiiniyiinta mowqifkooda uu aad u adag yahay haddaba qorshihii kala qaybinta ayaa Masar ay ka soo horjeesatay aynu eegna war amurtan la xiriira wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Badr Abdulcaati ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu si cad u diidan yahay isku day kasta oo lagu kala qaybinayo Mareykanka Gaza ama lagu barakicinayo Falastiiniyiinta ku nool deegaankooda hadalkan ayuu waxa uu ku sheegay waraysi uu siiyay wargeyska Talyaaniga ka soo baxa ee La Repubblica intii lagu jiray waraysiga Abdulcaati wuxuu sharaxay in dadaalada Masar ay ku xoojinayso heshiiska Sharm el-Sheikh iyo hirgelinta dhammaan qodobadiisa ee la xiriira dejinta nabadda Gaza ay yihiin kuwa socda wuxuu sidoo kale ka hadlay qabashada arrimaha amniga marxaladda kala guurka muhiimadda awoodsiinta maamulka Falastiiniyiinta ee Mareykanka Gaza wuxuu ku adkaystay diidmo buuxda oo Masar ay qabto oo ku aadan in Mareykanka Gaza la kala qaybiyo ama la barakiciyo dadka Falastiiniyiinta hadaladiisa ayaa waxay imaanayaan xilli warbaahinta Israa'iil maalmahan ay faafinayso warar ku saabsan in Mareykanka Gaza loo kala qaybin doono laba aag wargeyska Haaretz ee ka soo baxa Israa'iil ayaa waxa uu daabacay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ogolaaday codsi ka yimid Mareykanka oo ku saabsan qasada cusub iyo qasadii hore ee duuga ah waxa lagu sheegay in marka hore dibudhis lagu samayn doono qasada cusub wasiirku wuxuu sheegay in Masar arintaasi ay si adag uga soo horjeedo isla markaasna wuxuu yiri midnimada dhulka Falastiin waa tiir aasaasi ah oo xal kasta oo cadaalad ah wuxuuna intaasi ku daray in xalka laba dawladood uu yahay
kan kaliya ee nabad looga gaari karo marinka Gaza. Wargeyska Haaretz waxa uu sheegayaa in qasada cusub ay hoos imaan doonto ciidamada Israa'iil ilaa iyo dib u dhiska u dhamaanayo kadibna ciidankaasi halkaa ka bixi doonaan kadibna ciidanka xasilinta ee caalamiga ah awoodda lagu wareejin doono. Wargeyska waxa uu sheegayaa in Israa'iil weli ay sii wado jabinta heshiiska xabad joojinta. halkaas marka maxaa ka cad marinka Gaza marka in la doonayo laba qayb loo qaybiyo. waliba barnaamijyadeena soo socda waxaan idinku soo gudbin doonaa warbixin faahfaahsan oo arrintan la xiriirta. waaye xagga Gaza iyo Israa'iil wararkaas intaas ayna ku dhaafana markaan waxaan eegaynaa dhanka Suuriya iyo Israa'iil iyo Mareykanka war la xiriira. Israa'iil goobtan halkan idinkaga muuqata waxay qabsatay markii laga saaray xukunka magaalada Dimashq Bashar al-Assad. buurtan waxa la yiraahdaa Jabal Sheikh. Israa'iiliintu waxay ugu yeeraan Mount Hermon. laakiin buurtan waa buur dheer waa 2800 oo mitir weyn. waxaa la yiraahdaa buurtan cidii gacanta ku haysa waddanka Syria awoodiisa gacanta ku haysa. sidoo kale waa buur aad lagula socdo dhanka Israa'iil iyo buuralada Golan ee haysato dhanka Lubnaan ilaa iyo Syria. haddaba maxaa dhacay marka kulankii dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Syria Ahmed al-Sharaa waxa looga hadlay arrimo kala duwan. Ahmed al-Sharaa wuxuu soo istaagay annaga wuxuu yiri haddii la doonayo nabad iyo heshiis iyo Israa'iil aan xiriirka la sameysano diblomaasiyadda horta marka hore bal dhulkii hore iyo buuraleedii Golan Heights oo imaan doonay dhulka hadda ay qabsatay wixii ka dambeeyay 8 December ha ka baxdo. haddaba maxaa soo kordhay aynu eegno warkan. wargeyska iyo dacwada taxriirnada ka soo baxa Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Israa'iil ay ka walaacsan tahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku cadaadiyo Israa'iil inay ka baxdo aagga buurta Jabal Sheikh ee koonfurta Syria oo ay qabsatay Israa'iil markii talada laga tuuray Bashar al-Assad. wargeysku waxa uu sheegay in inkastoo cabsidaasi ay jirto haddana Israa'iil gaadiid culus ay halkaasi u dirtay iyadoo la sheegayo buurtan dhirirkeedu uu yahay 2800 oo mitir in ay tahay in markaa dayactir lagu samaynayo goobo military halkaasi ku yaal taasi oo muujinaysa in Israa'iil aysan doonin halkaas inay ka baxdo. laakiin wargeysku waxa uu leeyahay kulamadii ka dhacay aqalka cad ee Washington Ahmed al-Sharaa iyo sidoo kale Donald Trump ayaa waxaa lagu soo warramayaa in Ahmed al-Sharaa uu soo bandhigay mowqifyada la xiriira in laga dhabeeyo heshiisyada gaar ahaan Israa'iil inay ka baxdo dhulka ay qabsatay 8 December wixii ka dambeeyay. arrintan ayaa Israa'iil waxay u arkaysaa mid khatar gelin karta amnigeeda iyadoo Israa'iil ku adkaysanayso in marka hore amnigeeda ay xaqiijiso. marka buurtan marka laga tago Israa'iil waxay u jirtaa wax ka yar 50 kilomitir caasimadda waddanka Suuriya ee Dimashq. mararka qaarkood waxay tagtaaba deegaan kaliya Khwantara oo 25 kilomitir ilaa 30 kilomitir u jira magaalada Dimashq. marka xaaladdu way adag tahay. Trump marka waxa leeyahay cadaadis weyn buu saarayaa Israa'iil waa sida dalka loo dhigay. laakiin ma ka dhabayn doona maxaa ka jira arrintan warbaahinta Israa'iil ay faafinayso waa war hadda la sugi doona wixii ka soo kordha. dhanka Syria war arrintan ku saabsan ma jiro ilaa hadda soo baxay laakiin wararka khibrada ay sheegaysa waxay leeyihiin Ahmed al-Sharaa wuxuu ku adkaysanaya Israa'iil inay ka baxdo dhammaanba dhulka ay qabsatay wixii ka dambeeyay 8 December markaasi oo Bashar al-Assad xukunka ay ka tuureen ururadii mucaaradka ee Syria oo la wareegay talada waddankaasi oo Ahmed al-Sharaacna uu hogaaminayay. waayahay wararkaas ayaa wararka ugu dambeeya bal intaana ka bixin aanu eegno haddii ay jiraan warar degdeg ah oo soo dhacaya. waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada Israa'iil howlgal ay ka wadaan dhanka daanta galbeed ilaa iyo xalay ilaa iyo saaki waa berigii. sidoo kale wasiirada mayalka adag ee xukuumadda Israa'iil gaar ahaan wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich iyo wasiirka amniga qaranka Itamar Ben-Gvir ayaa si adag xalay waxay uga hadleen in aysan aqbalayn waxa la yiraahdo dhismaha dawlad Falastiiniya waxaana si adag ay u yiraahdeen Netanyahu waa inuu cadeeyaa mowqifkiisa. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii la sheegay qaraarka Mareykanku ay u gudbiyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo bari loo codeyn doono in lagu soo daray qodob oranaya waxa laga shaqayn doonaa dhismaha dawlad Falastiiniintu ay yeeshaan. marka labada nin
isla markiiba way soo kaceen way soo qayriyeen waxay leeyihiin Netanyahu waa inuu caddeeyaa mowqifkiisa isla markaasna uu diidaa waxa la yiraahdo dhismaha dowladda Falastiiniyiina waxaan arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha barnaamijka wararka maanta oo goordhow soo gali doona ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wixii macluumaad ah ee soo kordha sidoo kale barnaamijka bandhiga oo isna goordhow soo gali doona waxaan idinkugu soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan qorshaha Israa'iil ay degtay ee soo socda muxuu yahay ee marka Gaza qabiir Falastiiniyiina oo reer Falastiin ayaa wuxuu ka hadlayaa xog xasaasiya barnaamijkaasna goordhow soo gali doona inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo